ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نذير له ولا كفوا له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما رافع الإسر والأقلال الداعي إلى الخير الأقوال والأعمال والأحوال. بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم أجز عنا خيرا كما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وزده وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوات، وطبتم وطاب سعيكم ومشواكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم إنا نسألك ألا تصرفنا نساءنا في هذا المكان إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك. اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك. ما أجمل أن نلتقي أسرة مسلمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات، أيتها الأمهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية، ولا شيء مسلمة داي وحان الدردار ما ينفتيد يتينبه cabsida alle iyo in aan u hormarsano nafteena amal wanaagsan oo suuban maalin ayna maal iyo caruur midna waxba ku qabanaynin. inta kadib walaalayaal, mawduuca aan rabo in aan la wadaago wuxuu ku saabsan yahay makaanatul mar'a qabla al-islaam wa ba'da al-islaam. booska gabadha muslimada ah ay joogtay islaamka ka hor iyo jaahiliyada say ula dhaqmi jireen gabadha muslimada ah iyo diinteena wanaagsan, booska ay dajisay gabadha muslimada ah iyo halka ay istaajisay. inta aanan ka hadlin islaamka booska uu dhigay gabadha muslimada ah, aan fiiriyo xaalka haweenka islaamka ka hor. haweenku islaamka ka hor dalalka Yurub, Hindiya iyo jaahiliyada Carabta waxay ahaayeen kuwa ka dooda haweenku insaan miya mise waa shaydaan. bal waxay ka doodi jireen haweenaydu insi miya mise waa xayawaan. wadamada qaar haweenaydu waxay ahayd mid aan waxna gadan karin, waxna laga gadan karin, waxna aan hanan karin. dalka Shiinaha waxay ahaayeen kuwa aaminsan haweenaydu inay tahay qofka ugu shar badan dhulka korkiisa. haweenaydu waxay ahayd islaamka ka hor
mid aan qiimo lahayn, mid la iibsado lana soo gato sida xoolaha, lana dhaxlo haddii ninkeedu uu dhinto. waxayna ahaayeen badeeco raqiisa oo ceeb iyo fadeexo ku dhex joogta bulshada ay ku dhex nooshahay. sidaa awgeed ayaa loola dhaqmay mararka qaar cayayaanka sideeda oo kale, bal waxaa laga saramariyey xoolaha. waxaana la aasi jiray gabadha muslimadda ah iyada oo nool. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay asagoo arrintaa ayadaa inooga hadlaya: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. marka walaalayaal waad ogtihiin gabadha muslimadda aqaabka loola dhaqmi jiray, bal ayada oo nool yaa la aasi jiray oo la hogayn jiray. waxa hogayn jiray aasi jirayna waxay ahaayeen qof dadkii ugu xigay, aabaheed iyo ehelkeedii, xataa ma aha waxa dilayay aasiyay dad meel kale ka imaaday. marka walaashayda muslimka ahay maadan ku helin cisiga iyo sharafta waxaan ka ahayn diinteena islaamka. walaashayda muslimadda ahay qabso oo ku dheg oo dhagayso qowlka allah isaga oo ka waramaya xaaladii hore ee islaamka ka horeysay, oo ay tahay in aad xasuusato, ayna tahay in aad ku maadiso allah mar hore iyo mar dambe nimcada uu kugu galladaystay awgeed. wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala isagoo arrintaa ayadaa inooga hadlaya: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. لا إله إلا الله. markii loogu bishaareeyo ilmo dhadig ah ayuu wajigiisu noqdaa madow asagoo ka calool xun, wuxuuna ka qariyaa dadka naftiisa. ma sharaf darru ku dhex joogaa mise wuxuu ku aasaa ciidda? waxaana sharca go'aankooda. way nolol xabaalayaan, wayna dilayaan, wayna aasayaan gabadha ayada oo nool. ee dhagayso walaashayda muslimka ahay, waxaa la yiri saxaabi la oran jiray Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa ardaah, wuxuu la fariistay nabiga sallallahu alayhi wa sallam. waxaa ka muuqan jiray wajigiisa murugo iyo tiiraayo, murugo weyn iyo tiiraayo badan. nabiga sallallahu alayhi wa sallam baa weydiiyey sababta murugadiisa aan kala go'a lahayn. wuxuu yiri rasuulkii allah, waagii jaahiliga islaamka ka hor waxaan ka tagay xaaskayga oo xaamila ah, oo waxaan u baxay safar dheer, soomana noqonin ilaa sanado kadib moogi. waan soo laabtay mise waxaa ii dhashay gabar aan arkay ayada oo la ciyaaraysa ciyaalka yaryar. waxaa ka muuqday qurux, baarinimo iyo wanaag. waxay ahayd gabar yar oo caqli badan, qaayo badan oo qurux loo dhameeyay oo lagu indhaqabowsado. markaan sugay aniga oo hubsanaya in ay dhimatay iyo in kale, waan soo qaaday oo aan ku yiri hooyadeed qurux ayadoo og in aan nolol xabaalayo. markaasay hooyadeed diyaarisay oo tid iyo cirib sii qurxisay ayada oo hami iyo murugo saaran tahay. intay dhistay gabadhii yarayd yay tiri ninow hadayicin amaanada ilaahay, ninow hadayicin amaanada ilaahay. wuxuu yiri Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa ardaah, waan kaxeeyay gabadhii ayada oo calool xaaran, faraxsan oo bilic iyo caraf la ifaysa, oo la aaday war ka mida waraha. waxaan cabaar ku jiray waraha oo baadi goobayay ceel halka ku yaalay. saanu imid ceel sal dheer oo biyo la'aan ah. waxaan istaagay ceelka afkiisa aniga oo fiirinaya gabintaas. markaasuu qalbigaygu nuglaaday calool xeernideeda iyo dambi la'aanteeda ilmaha yarka ee saqiirka ah. mise waxaan soo xasuustay ceebta iyo fadeexada ay dumarku ku leeyihiin bulshada. markaasaan qalbigaygu sii adkaaday. wuxuu yiri Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu wa ardaah, isaga oo raadiyay xoog, intaan soo qabtay gabadhii yarayd baan ceelka salkiisa afka ugu tuuray.
subxaanallah markaan sugay aniga oo hubsanaya inay dhimatay iyo in kale mise waxay leedahay aabow macaanow dayacday amaanadii aabow macaanow dayacday amaanadii ayadoo ku celcelinaysa ilaa codkeedii uu ka go'ay ee wallahi rasuulkii allah warkii aan soo xasuusto dhacdadaas waxaa i fuula hammi iyo murugo oo aan jeclaadaa in aan ahaado mid dhintay oo aragiisa la waayay hadduuna islaamka jiri lahayn wuxuu fiiriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam mise ilmaha ka qubanaysa garkiisa qoysay isagoo leh sidii la yiri sallallahu alayhi wasallam abdullahi ya wallahi hadii aan cid ku oogi lahaa had dambi uu galay xilligii jaahiliga waan kugu oogi lahaa laakiin islaamka waxaa lagu dhaafay wixii hore ee dambi hore loo galay walaashayda muslimada ahay ku mahadnaq allah subhanahu wa ta'ala diinta islaamka yeelay dhammaan gabdhaha caalamka ku nool walaalayaal waad ogtihiin islaamka ka hor sida la inoo dhaqmi jiray iyo qaabka la inoo gali jiray bal laynaga hoos marin jiray xayawaanka bal laga doodi jiray gabadha muslimada insaan miya mise waa bini aadan oo waxyaalo aad loogu quursado oo aad looga murugoodo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ay tahay inaan ku shukrino islaamnimada iyo nimcada uu nasiiyay ee ah mid ugu horeysa ay tahay islaamka booska islaamka gaarsiiyay dumarka haddaan dib u fiirino taas waxay ahayd booska ay lagu dhaqmi jiray gabdhaha diinteena islaamka ee sharafta badan intayna iimaaneen qaabkee loola dhaqmi jiray waa shay aad muhiim ah inaad ogaato qofku ma ogaan karo nimcada uu haysto ilaa uu diinta islaamka uu soo galo asagoo gaala bal inagu aan ku dhalanay manzilada hadda aan taaganayna inagu baan aragnay laakiin gabdhihii inaga horeeyay diinta islaamka ka hor qaabkee loola dhaqmi jiray booska islaamku gaarsiiyay haddaan u soo laabano gabadha muslimka ah markuu islaamku yimid wuxuu karaameeyay haweenayda wala fiirsada walaal allah subhanahu wa ta'ala booska uu gaarsiiyay wuxuu karaameeyay gabadha wuxuu karaameeyay qofka dumarka ah hooyo ahaan muuna ka tagin wuxuu karaameeyay diinteena ay karaameysay gabadha marwada ama gabadha xaaska waxay diinteenu karaameysay gabadha yarta ama guriga ku joogta waxaanu naqaano ilmaha yarka aanu naqaano yey diinteenu karaameysay allah subhanahu wa ta'ala isaga oon ka tagin oo mid kaste xaq gaar u yeelay oo noo sheegay manzilada ay taagan tahay gabadha muslimada inta aana guda gelin waxaan rabaa dhammaan gabdhaha muslimaadka ee meesha iskugu imaaday inaan wax yar hal su'aal in weydiiyo ilaahay baan ku dhaartay qofkii su'aasha iga jawaabo wuxuu iga mudan yahay jaa'iso ama abaalgud aad u weyn su'aashaas waxay tahay waxaad ka soo saartaan kitaabka quraanka suurad lagu magacaabo suuratul rijaal ama suurada haweenka ragga ma jirto bal allah subhanahu wa ta'ala meeshuu ina gaarsiiyay wuxuu inagu magacaabay suurad la dhaho suuratul nisaa bal wuxuu si gaar ah haddana u si magacaabay suurad la dhaho oo gabdhaha magacooda loogu magacdaray suuratu maryam sidoo kale allah subhanahu wa ta'ala waxa jirta suurad loogu magacdaray qisadii dhaxmartay gabadhii la dhahay khawla oo ah suuratu mujaadil allah subhanahu wa ta'ala nimca aad u weyn waaye nimcada uu ina siiyay oo uuna siinin dadka kale ama ragga haddaan aan fiirino iyo diinteena islaamka aan booska ina gaarsiisay ayna gaarsiinin dadka kale inta haddaan kaga gudano bal aan fiirino inagoo mid ugu istaagayna diinteena islaamka say u karaameysay gabadha iyo say u karaameysay hooyada iyo say u karaameysay gabadha xaaska ama gabadha marwada booska ay gaarsiisay bal nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskan qof kasta oo akhriya wuxuu ku tadabburayaa oo ku reebaysaa waxyaalo maxal jiray gabadha muslimka ay aad uga farxi karto nabiga sallallahu alayhi wasallam meesha uu ina gaarsiiyay maalinka uu istaagay nabiga sallallahu alayhi wasallam yawm al-arafa ahayd uu istaagay nabiga arafa ahayd yawm al-wadaa nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaad ku wada garanaysaan xadiiska uu inoo dardaarmay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlay mowqica irdiga qofka bini aadanka sharaftiisa inaan meel looga dhicin wuxuu ka hadlay diinteena uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka hadashay maalku ka hadlay bal nabiga sallallahu alayhi wasallam marna muuna ilaawin inuu ka hadla gabadha muslimada asagoo booska taagan nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna ilaawin inuu ka hadla gabadha muslimada
ودردار مرقة وراك إلى قبل مسلمة دا وقادان حقوق ذا سيد صحيح المسلم قصة حديث الجابل رضي الله عنه وحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكاه الله يديق النصب كحولها منعون إلا النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدايه قيمها أي لا ذا هاي قبل مسلمة دا أي كل هذا هاي بوسكا أي دينتين الإسلام كينا دجسي النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله النبي صلى الله عليه وسلم موقع وين أمان كوين هيد والنبي صلى الله عليه وسلم ودردارمي وحياله بدن كهلي حتى أنا وحيالوك